madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandhayn ku sameeyay golihiisa wasiirada isagoo qaar xilka ka eriyay sidoo kalena qaar isku bedelay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Somaliland ayaa u dhignaa sidan markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Somaliland markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan Cismaan Jaamac Aadan Iimaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga Faadumo Cabdilaahi Cumar Deeriye gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon in laga bilaabo taariikhda maanta oo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga isagoo hore u ahaa wasiirka waxbarashada iyo sayniska Dr. Saacad Cali Shire wasiirka hore arrimaha dibadda Somaliland waxa loo bedelay wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame Dhagaweyne wasiirka ku-xigeenka hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxa loo bedelay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Daahir Axmed Fure wasiirka ku-xigeenka hore wasaaradda maaliyadda waxa loo bedelay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abakar Maxamed Yuusuf in laga bilaabo taariikhda maanta oo ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska isagoo horena u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Yuusuf Maxamed Cabdi Raagi wasiirka hore wasaaradda maaliyadda Somaliland waxa laga dhigay xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta ahaado xubin ka tirsan guddiga tacliinta sare isku shaandhaynta uu sameeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa baraha bulshada xoog looga hadalhayaa mar walba goor walba kala soco warbaahinta Haldoor News wararkii ugu dambeeyay ee dacallada dunida iyo Soomaalidaba halka hoose kaga tag wixii fikir ah iyo sidaad u aragto isku shaandhayntan uu sameeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi